السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسن صاحب بيان جمعة مبارك. وحرجينا أنا في عنته دي ليلة ساكا وحن نفسر الدونا ما هي دي الصومالي دا ميت كاميدا. وحنا كسو ختم الدونا هدو الله إدمو كسو حنون بدن ورنتي عن السيربا ما هدن بيكتر جميسا إلا وحي ليلة هذا ما هو وأنما يكتها الله أساقا إنما يكتمد ماذا سامر marka inaynu fasirro bal marka intaynaan u guda gelin ama inaan u gudbin sheekada kale maamada aynu sheegno kadibna aynu kala dhigno waxa la yiri nafsi ood afkaaga dhow nafsigu ooda afka uu kaaga dhow yahay waayaha nafsi maxaa la dhahaa ood afsa maxaa la yiraahdaa nafsi waa godob وحمان وقف ودبات أدقيستي أبال قد كيسينا كاما فغي أودو كاغدو يهي أودا أيو كاغدو يهي داد استري أفكا بو حسو عيدوكم أركيسي والو أركيا إلهي باكو أركيا إلهي باكو عليهي يعلم خائنة الأعيون وما تخفي الصدور حلابت هوست داكو قرصوني إيش خائمتا الله أركيا مركا حتى الغف كاغود بدن أدول ميدو ama xumaan ku samayso ama baad dulmigaas mid qarsoodi aad ka dhigto ama mid zaahir aad ka dhigtaba abaal gudkiisi waad leedahay jazaheediina waad mari xumaantaas dad moodin ka fogtayna de ooda af uu kaaga dhow yahay ooda marka maxaa la yiraahdaa sala socdaan reer miyigu waxay dhistaan aqal dasa ah oo ka kooban dhig iyo dhambal dhig waxa la yiraahdaa geedaha oo dhan ee guriga lagu dhiso ayu geedka haday udub noqon lahaa iyo haduu dhig noqon lahaa iyo haduu hinsaraar noqon lahaa wuxuu doonaa noqdo geedaha guriga lagu dhisay oo dhan baa dhig la isku dhahaa waxa kale ee gurigu leeyahay harar leh kabal leh saan leh jarca waxba leh na dhambal baa la dhahaa guriga marka la dhiso ee harkaha lagu adkeeyo la nadaamiyo haddii sidaa lagu daayo meesha bannaan lagaga tago dee xoolaha geli oo looda iska cuni oo waraabaha waxba geli lama joogi karo marka saa darteed ood baa lagu wareejiyaa afarta garjaha ood sidaa lagu wareejiyaa hal iridna waa loo sameeyaa iridka marka ood kolkii laga baxayana la iska qabto markii la soo galayana la iska qabto ayaa loo sameeyaa ooda jiidana waa la yiraahdaa ood afna waa la yiraahdaa waa oodaas marka waxa lagu tusaaleeyay adoo intaad guriga ka soo baxay ardaaga fadhiya oodina ay ku muuqato waxa ooday adiga idin dhaxaya intee ku jira ooda dhan baa laga yaabaa in 5 talaabo ku jirto ama 5 talaabo farabadan 3 talaabo wadhe hal talaabo ka goob marka nafsigii aad gashay 2 talaabo ku jira hadda 2 talaabo ku jirana uu kula joogaa marka hadaad moodayso nafsiga aad gashay xumaanta aad gashay inay ka fogtahay intaas uu ku jiraa way ka taxadar marka aynu soo qaadana qiso xanuun badan oo taa inoo fasiraysa waxa la yiri wiil iyo gabadh iyo walaalo ahaa waxa dhalay walad aad u qiimo badan si fiican bay u koriyeen siiba gabadhana aad bay u ilaaliyeen akhlaaqdeeda iyo haway waxbarashadeedaba laakiin ma garanayo wiilka siibuu xarig furan markii dambe uu noqday wiilkii wuxuu noqday nin markuu soo yar weynaad 20 jir iyo meelaha gaadhay la kari waa oo magaalada galay bacdar kooxu la xidhay Mooriyaana gabdhaha lagu gaadhsadaa kolba guri baa la geeyaa kolba xumaan baa lagu sameeyaa magaaladii bay walaaqeen dhibaatay geysteen walibana asaguna dadku ugu sii daran buu noqday gabadha laakiin gabadha akhlaaq badan baa heedo aad asturano iskoolka dhigatay iyo gurigooda looma dhaxayn oo ma dhaxayn jirin wax kale labaas u dhaxayn jirtay andho iskoolka iyo guriga labaas u dhaxayn jirtay meel kale ma ku leexan jirin guriga ka soo baxda iskoolka ay timaada waalidkuna aad bay u ilaalin jireenoo kolkay iskoolka joogto way ka warhayn jireen kolkay guriga joogtana ka warhayn jireen
oo markay iskoolka aadaysa gaari baa lagu sii qaadi jiray kolkii laga ay imanaysan gaari bay soo raaci jirtay taxadir badan baa loo samayn jiray iyadan lafteeduna gabadh silaalisa ay ahayd laakiin mooryaantii kooxda ahayd mid ka mid a gabadhii arkay xilliyada birrifta lagu jiray biyaha meelaha laga cabayo meelaha ka feeriyaayo uu la hadlaayo waxa uu yidhaahdaayo madaxu iyadna ooma juuq dhahdo laakiin way aragtay inuu damacsan yahay markay muddo sidii ku waday yaxay tiraba ruuxan horta la hadal balmaad ka neefisid waa intaasoo mustaqbalba doonayee maalinka dambay la hadasho maxaa artaa bay ku tiri wuxuu walaa inaan sheekaysanan rabaa aan mustaqbal baan rabaa kan weeye xaggan futuusa hadal buu ku shubay intay hadlaayeen waqtiga ka dhacay tiri waxaan gelayaa xiisadaydee bal berri baynu wada hadlaynaa berri baase waayahay buu yidhi farxad buu la dhacay waa gabadh qurux badan la hadashay maalinka dambe uu yimaadee meeshii fadhiyo diyaar buu horta in la sheekaysato uu u yimaadee soo gaari wata wuxuu yidhi walaalle aan guryahan dhabarkooda guri ku yaalla halkaas baynu tegaynaa in yar baan soo qaadanaynaa sheeko yar waan soo noqonaynaa may diiddo waayahay bay tiri shirka gaarigay gashay gaw xagga ka wari xagga ka dhowr iyo 10 meelood ka dusayoo iyadoo hadlaysa maxaa ku haysa iyo guri geeyey way ka degeenoo guriga hoosta ka xidhayoo sharaab iyo xusho uu soo diyaariyey buu siiyeyoo way isgaran weyday wuxuu doonu ku sameeyey xilli dambe oo 7 saac soo dhowdahay oo xilligii guriga ay iman lahayd ayuu isoo miirsatay iyadoo khariban oyday sidaan maxay tahay nacasani u gashay alaala ayar isdaji ku yidhi gabdhaha kula midka wata maan samaynaayo xilligaas ay bareedo wala marka kolley khalad dhacayo dambi galay intaan waalidkii ogaanin isii qad iige saas ahaa ayay meel baan sharaab kaga soo qaaday kaadi iyo biyo xanaatay wajiga marsatay gaarigii buu xoogu cayriyey gufo gaari buu ku dhacay gabadhiina gurigu kor kaga xidhay day bixi lahayd gaari mu ku dhacay qaco qola askar ahaa harraha kaga soo booday waad xidhantiin baa leeyahay waad xidhantaa leeyahay adigu arrinta waxaa kalanta gabadhiina meeshii bay ooyeysaa reerkooda hadday tabaanna waa arrin kale in la ogaadana muu rabo kolba wuxuu rabaa meel inuu geysto waxjaala kale kama rabee laakiin in la ogaado muu rabo kolba inuu meel geystuu rabaa mid buu wacay marka waraa hebelow nio gabadh baa maanta sii qaadmay heblaayaan geeyey hawsheedii waan ka gutay dee hadda kadib waxaan rabay inaynu shurakada ka dhiganne laakiin hadda inaan sii qaadaan rabay hadda anigana bileysi waxba ay haysta gurigii noocaas ay joogtaaye sii qaado gurigii hooyadeedkee adiguna dee hawshaada ka fusho hayebi farxad buu la dhacay markiiba gaadhiu meelaha kala ordayo sii daayey ma garanaysaa ninka loo diray oo walaalkeed horta wuu furay gowgowmayaale korkuu ka furay saa tiyo daaraddii ooyeysa oo ilmada ka dhacaysa ayaaba oon marye qabin oo silicsan buu u galay waa walaashii naxdin iyadina naxday asna nax de waa jasihii gabdhihii kale ugu sawaynay sooma de muxuu sameeya marka carbal muxuu sameeyaa muu dilaa ma asagaa isdilaa mase iyadoo sidan u intuu sii qaado hooyadii aabihii u geeyaa toorri buu la boodoo galab wuu ugu shubay meeshii buu iyadii naftaba ka jaray isagoo bere dhiiga watuu ka soo baxay meeshii oo booliskii iyo waxbaa qabtay arrintan qaraxday isagiina la xidh waalidkii iyo loo sheeg dee meesha maxaa ka dhacay halaag maxaan ka soo wataa marka dhibaatada noocaasa waa dulmiga asagu geysanayay marka adigu haddaad wiil tahay walaashaa dulmi ha u geysanin gabadh kasta oo walaashaay gabadhayna nimaadan aqoonin waan ku jeclahay intuu ku yidhaa been yuusan kuu sheegin haddaad mustaqbal doonayso guriga annaga imaa ku dheh nina meel ha u raacin isilaali waa dardaara